حكمتي سيد علي بن أبي طالب أمير كي مؤمنين تا السيد عمر بن الخطاب الله كرا للنقضي أي وح مغلي ويل كدو عسانيو انت وحكم سؤال له وحكم كوانا سنايو نكلا حكم أنيق إيهو يدي عجيبة قصة عجيبة دوا سرفت بدان دا جعش قصوينك دينيغا إي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إي قصوينك وناسان سوقد بنتو الله يسر مقالك سين شرقري سيسان كودافن ونفا في خيرك ولا كلي مسلمين تا انت ونجوغنو aan ka faa'iideysan waqtiga aan ku salin nabigeena sallallahu alayhi wasallam ajirna hel iyo dambi dhaaf qor commentiga saliga nabiga sidaan ayaan guda galeynaa sayid cumar ayaa yaabay markaas waxa uu tagay wiilkii oo ku yiri maxay ducadaad ku duceysanaysid wiilkii ayaa ku jawaabay amiirkii muuminiinta oo hooyaday uurka ayaa igu qaaday waa ay dhashay oo inuujisay markii aan weynaaday ayaa inkirtay oo ay tiri kuma aan dhalin ay dhaaf سيد عمر waxa uu yiri hala keen hooyadaas waa la keenay waxa uu weydiiyay sida ay wax u jiraan waxa ay ku jawaabtay ma aanan dhalin wiilkan marqaati ma istaaya uu weydiiyay amiirka waxa ay keentay walaalaheed ayagana waxay ku marqaati kaceen in wiilka uu rabo in uu walaasheed ceebeeyo oo aysan dhalin iyada Sayid Cumar waxa uu amar ku bixiyay in wiilka xabsi lagu tuuro xabsi ayaa loo qaaday wiilkii markii ay dhaxsi marayaan أي waxa ka hor yimid Sayid Ali bin Abi Talib Allah ka raali noqday wiilkii ayaa Sayid Ali la hadlay oo ku yiri in adeerkii rasuulka alayhi salatu wasalaam waxaan ahay mid la dulmiyay sidaan ayuu Sayid Cumar igu xugmiyay Sayid Ali waxa uu yiri hal celi wiilka ayaa ku amray wiilkii waa lagu celiyay Sayid Cumar waxa uu weydiiyay maxaa wiilku soo celiseen waxay igu jawaabeen adiga soomanama amrin in aan Sayid Ali waxbaan lagu caasinin isla markiiba Sayid Ali ayaa u yimid Sayid Cumar waxa uu ku yiri aniga ayaa xukminayo xukum oo alla raali ka yahay waxa uu u yeeray hooyadii marqaati la imo ayaa uu ku yiri sidii oo kale marqaatigii waxa isku raaceen in wiilkan aanay dhalin gabadhan Sayid Ali waxa uu ku yiri marqaati ahaada wiilkan haweeneydan waan isku guuriyay 400 dirham ayaa meherkooda ka dhigay wiilkii lacagtii ayaa u meer ahaan ugu dhiibay waxaan uu ka dalbaday doonaysa inaad barato quraanka kariimka ah higaada carabiga kutubta shariicada islaamka ducooyinka adkaarta adiga jooga gurigaaga goobtaada shaqo hab online ah hadii jawaabtaadu ha tahay maxadka baytul xikma ayaa kula diyaara ee nambarada hoos ku qoran kala xiriir mahadsanid inay isku raacaan halka aroosku ka dhacayo islaantii waa ay qeelisay ay ku tiri naar ma waxaad ii guurinaysaa wiilkayga wallaahi walaalkayga ayaa igu daray aabihii oo magaalada qariib ku ahaa wiilkan ayaana dhalay kadib qoyskayga ayaa igu qabsaday oo ay amaray inaan diido oo aan iska fogeeyo in wiilkan dhalay Sayid Cumar oo yaaban Allah ka raali noqday ayaa iska ooyay oo yiri haddii uuna Sayid Ali ahaan lahayn Cumar waa uu halaagsami lahaa عجائب واي دوا سرت ودان halkaas nala soo gaartay oo dhamaadka qisada ah waxaan naga mudan tahay sharaf iyo karaamo waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto qisooyinka diiniga wanaagsan si u faafaan looga cibro qaato share gare khayrka oo faafisa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam adaalu ala alkhayri ka faa'ili khayrka oo tusisa dadka waxa lamantadigu sameeyay waqtiga ka faa'iideyso ku qor commentiga saliga nabiga iyo kuwa adkaanin shaydaankiisu ku diidin الصلاة والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم قر أجري دمنا بتكلسة وحديث تبيني أنا جوا سراج الدين شيخ محمد حسن هل كان يقدر يسوي تي في عالمي دي اس دي تي في